halkani waa meherad dhawaan la furay oo lagu magacaabo Warsan iyadoo lagu sameeyo cuntooyinka kala duwan ee Itoobiyaanka ah. Saaka ayaa ciidamada bilayska gobolka Togdheer ka xidheen qaar ka mid ah shaqaalihii ka shaqeynaya xaruntaasi oo ahaa ajaanib Itoobiyaan ah. Telefishinka caalamiga SBC ayaa wax ka weydiiyay mulkiilaha meheradani sababaha loo xidhay shaqaalaha meheradani ka howlgalayay. والله ولا waxaan la soo gudbaanaaday horta saaka soo abaara koytobanadii meelahaas ayaa lagu soo galay meherada sifa sharci darra ah markaas waxaan anu ka baxay meherada qolo shaqaalaha baa joogtay dadka joogay gibigooda waxaan dad wada shaqaalaha waliba dad ajaanib oo fara badan dadkii customerka haaya wax iibsanayay marka qolo waxa soo gashay askari wadaada marka waxa la xiray qaar kamid ah shaqaalihii joogay meherada qaar kamidana waa la aflagaadiyay waa loo in reception ka joogtay indhaha dhuf lagaga tufay oo iyadiyo dadka kale customerka wax iibsanayba way sheegeen mana jirto safa sharciya ama warqad cadeynana loo keenay oo meelnaba ka socota meesha doonta ta la oranayo de kiis noocaasa ayaa la idinku haystaayo de way xirintihiin ama wax de toos oo safa sharciyana loo soo maray ma jirtaba maxaad markaad ka codsanaysaa dawladda waxaan ka codsanayaa dawladda in kiiska meheradayda lagu xidhay degdeg looga soo jawaabo iyo waliba caqaladan loo geystay meheradayda iyo sumcadarrada meherada loo geystay iyo dadka ajaanibka ee loo cagajugleeyay ee la aflagaadeeyay ee la xidhay ee maxay karaamada meheradayda lagu ciyaaray sidoo kalena mid ka mid ah dadkii ka cuntaynayay ayaa isna noo sheegay sida ay xaaladdu ahayd waqtigii la xidhay shaqaalaha meheradani aad u weyn waxa weeyaan niyad u hilmays wixii haddana waxa weeyaan inaad haddad controlis bulshadaada inaad xeer aad system aad u marto aad samaystaa imika waxa dhacday markay noo soo galiyeen wax laali waxay ku xidhan yihiin warqad waarana ma jirin marka siibin ugu adkaysan karana waxyaalo noocana ganacsigeenu hoos buu burburayaa dadkiina way ka wada yaacayaan niyadna u helimayno ganacsigeena ka sii jeedayna waxa weeyaan magaaladu iyo horumarkeeda zero baa laga dhigaya dhanka kale waxaan isku daynay inaan la xiriirno isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer oo ay hoos tagaan wadaadada gudida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolkani Togdheer oo la xiriirinayo xadhiga shaqaalaha balse waxaanu tagnay xarunta wasaaradda oo albaabadu u laaban yihiin ayaan leh Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.